qaar ka mid ah dadka shacbiga ah ee ku dhaqan xaafadda wadajir ee magaalada Berbera ayaa cabasho xoogan ka muujiyay dhul ay sheegeen in ay lahaayeen oo ay sharci u haysteen isla markaasina shirkadda Dera Group mas'uuliyiinteedu ku qabsadeen waxaana ay dhaliil culus dusha uga tuureen taliyaha qaybta ee gobolka Saaxil oo goobtaasi ku sugnaa balse ay sheegeen inuu wax ka qaban waayo arrintaasi waa sida ay hadalka u dhigeen waxaana ka mid ahaa hadaladoodii Bismillahir Rahmaanir Rahiim saakalkan waxa ka dhacay waxa weey adduunyada sharci baa lagu kala baxaa nimanka ilmayn la deere ee iyagu magaalada hantiga ugu badan iyo dhulka ugu badan bale ee ilaa gumbar waranoodii ilaa biyo guuro leh ayaa dadkii maatida hay bolbolka la sii ku qaysta oo la yar halkan loo soo dhaaf dadkii maatida hay dumarkii iyo waxa arkaysan gabadhi lagu wariyay lan kruusila iyo qoriyo waxa rabshada magaalada maalin walba ka wadaan wayaga ama dhul boobaya ama wax qasaya waxa kale waa ceeb baan u leenahay ganacsado weeyaan magaalada kala bar buu leeyahay waxa weeyaan isaga maxjara ku loo hanti magaalada u tahay dadkan bustunba ka yaale uska carri doona waxa isku yimi dad sharci haysta iyo dadaan sharci haysan oo ilmaha Dera ka socda dadka waxa weeyaan ilmaha Dera ka socda hubbaysitaan markii taliyihii la yiri hubkan gaariga ka soo saaro baad waxa weeyaan mar allaalo waxa weeyaan waxa laalo wuxuu ka qabtay ama uu baaray midna ma jirto waxa weeyaan bareer cad ayuu waxa weeyaan iska taagay in aanu waxa weeyaan uu ilmaha Dera u hiliyo dambiilana aanu ka qaban waxa weeyaan markii damana shacabkii iyo maantidii meesha laga muuse ana ah shicibka magaalada Saaxil gobolka Saaxil ah muddo dheer 12 sano dhul aan lahayn ayay nagu haystaan shaqana nagu ma laha shaashna nagu ma laha markii aan u yeedhnay dibada ka leeyahay maamulka magaalada aan u yeedhnay ee taliye qaybeed noo yimi nimankaas oo hubaysan oo muddo dheer nagu haystay meesha oo dumarka iyaga iyo caruurta iyaga caasiiriyay adhow habeen soo eriyada naan faruxmeeyay sida doorana yiri waxaan u sheegnay ninka taliyaha qaybeed nooga ciyooday oo cidiisi u dhurtay noo soo qaban waayay maanta oo ah dibada ka arbaca in uu noo soo qaban waayay ciidankii intii noogu timina la soo eriyaday anagana ayna soo eriyadeen beesha caalamka ama si madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa si talaabo sharciya looga qaado hadii kale macasharka inay Dera inuu u dhimanayo hadii aanu nahay shicibka gobolka Saaxil hadaan nahay taliye uu isku dilay mursal uu isku dilay ciduu yahay ayuu u dhurtay waxa weeye talaabo sharci ah nolog halkii markii loo qayday ka guureena halka iyagii xagga shaka mareen annaba dad badana waanu isku laynay dawladii ma noo timi dawladii markay noo timina way nashiideen markii ciidankii loo yeedhayna taliyihii ayaa ciidankii soo raacay wuu u tagay halku dadkiina soo shiiday dadka laayay meesha ku dirinayay ee qoryaha nagu riday maantida laayay halkii uu waxay haytay soo xidhxidhi lahaa wax weydiin law soo qabanay station noo keeni lahaa ee wada hadal siin lahaa ayuu la shiray markuu la shirayna wuxuu yiri meesha hadii ay leedihiin ordo oo wixii aan layn karaysaan laaya maati iyo ragba wixii aan layn karaysaan waana in adeerkood anagu waxaan leenahay Axmed Maxamed Siidaayo madaxweynaha waxaanu leenahay nin qabyaalad ku shaqeynaya xil ha u dhiibin nin qabyaalad ku shaqeynaya xil ha u dhiibin Bismillahir Rahmaanir Rahiim anigoo ah magacaygu yahay Farxiyo Biixi Muuse qof shacab oo reer Berbera ah hal balood baa meel laga siiyay halka ilmaha Cabdi agteeda ah waxa weeyaan markasta ninkii ilmaha Dera Mustafa Dera baa waxa nagu fayliyay wayna laayeen dawladii markay sir dhexdhexaadina way diideen xoog ayay wax ku doonayaan waxa weeyaan anigoo kulmiyo u codeeyay oo soo saaray siilaanyo oo aan ku mahadsanaa waxa weeyaan codkaygana dubaan gala noqday haddana waxa weeyaan Berbera iyaan ciidan u doonanaya mar shaqaylmay Dera waxay ugu kalifaysaa in ciidamo u diro oo aan burburiyo haday waxa Mustafa Dera ka noqon waayo ayaan doonayaa inaan galo iskuulada oo cid kasta galo oo aan burburiyo sida geesta kale waxaanu isku daynay inaanu wax ka weydiino mas'uuliyiinta shirkadda Dera Group ee iyagu dhulkaasi ay sheegeen inay ku haysteen balse nooma ay suurtagelin Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka Sam News TV magaalada Berbera